nafisa maydkeeda waxa uu ku jiraa digsigaasi idin muuqda subxaan allah waa dhacdo argagax leh oo ka dhacday degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir nafisa maydkeeda waxa uu ku jiraa digsigaasi idin muuqda inna lillaah wa inna ilayhi raaji'uun nafisa Cumar Geelle oo ahayd gabar aad u daayar oo da'deedu lagu qiyaasay 10 ilaa 12 jir muddo 3 maalin ahna ka maqnayd reerkooda ayaa meydkeeda laga dhaxlay gurigooda dhexdiisa arinta dadka sida weyn uga yaabisa ayaa ah in gabadhan oo gacmaha iyo lugaha ka xiran si xunna loo dilay laga dhaxlay digsi weyn oo dhex yaallay isla gurigooda arintan ayaa si weyn waxa ula yaabay dadka deegaanka gaar ahaan dariska gabadhan dhibkan uu gaaray gudoomiyaha degmada Dharkeenley oo ah degmada dhibkan uu ka dhacay Guhaad Sheekh Xasan oo halka ay wax ka dhaceen tagay ayaa sheegay in si weyn ay ula yaabeen sida uu dhacay falkan arxan darada ah waxaana uu intaas ku sii daray in ilaa iyo 7 qof oo ah qoyska gabadhan sida xun loo dilay in loo xiray arintan maadaama isla gurigooda laga dhaxlay meedka gabadhan oo ku dhex jira digsi weyn oo guriga dhex yaala waa kan isagoo arimahaasi ka hadlaya runtii maanta mucjiso meeshan ku aragnay saddexdii maalin ugu dambeysay waxa la baafinayay gabar yar oo ilmahan iskuulka dhigta masaajidada xaafadda iyo xitaa warbaahinta qaarkeed oo baafin ku sameeynayay runtii gabadhiya waxa lagu arkay saaki digsi weyn oo digsiyada sabta ayadoo ku dhex jirto digsi weyn kala kor saaran yahay joodaryaal iyo alaab ka koreyso ciidda subaxdii hore waxay dhaayeen doolima guriga ku dhintay wax saamal ah laakiin markii la galay waxa la arkay gabadhii la baafinayo oo go'go'day oo meesha ku jirto waxyaabaha mucjisada waxa kamid ah in xirxirneed oo lugaha iyo gacmaha iyo ka xirneed runtii tuuna jiro oo qoladii CID-da imaaday ma gowracneen gabadha laakiin fal kale inuu dib ku dhacay loo maleynaa maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabii ka maqnaay guriga cilla ahay laba wiil oo qaraabal ay joogtay oo qaangaara ah marka iskuulka markay ka imaaday in dib loo geystay waxa saxmal laga shakisan yahay kadibna uu dil sas loogu sameeyay xariga laakiin ku cijisneed gabadha gurigeeda waa qolkoodii lagu xirayba marka waxa la yaab leh familka qolkan isticmaalayeen mas uu iska xirnay in la ogaado dibka ku dhacay ma kufsiya ma si kala loo dilay ma ragana ka dambeeyay ma cid kale ka dambeysay runtii baaritaan jiro qoyska waxa la joogeen laba wiil oo qaraabe ah hooyada iyo aabaha iyo ilmaha waxa la joogeen wiilal qaraabe ah abti ma u yahay masadeer u yahay wiilal si camal joogeen wiil kamid ah iskuul oo jira wiil kamid ah oo nala jooga oo xogaa dhagaha ka culus dhamaantood saldhigan geed doona meedka CID-da la geena waxa la baaraa gabadhan qaabka u dhimatay waxa la ogaan doonaa ma gacan oo bilaadina ku dhimatay ma markay dhimatay kadib la xirxiray oo la ogaan doonaa marka waxa la ogaan doonaa falkan familkii oo dhan aan wadnay wixii oo qaangaara oo guriga jooga baa wadnay waxaan rabnaa inaan aan geyno oo la baaro taliye saldhigaan oo imaan doono marka dhamaantood waa la baaraa haddii la yiraahdo markii la baaro waxaan ogaan doonaa wixii dhacay insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa cadaalad inay gabadhan sababtoo waxaan aqli ahayn guri hooyo iyo family ay joogaan oo gabdho ka waaweyn joogeen sababta gabadhan dib loo geystay in dibkan uu yahay dib oo gudaha ka dhacay iyo dib banaanka ka yimid waa doona insha Allah tacaala aabaa safar oo jiray soo noo sheegay oo hadda yimid gobolada jiray maamada way shaqaysaa idin way maqneed marka dib noocaas ku dhacay kulli baaritaankan wax walba lagu ogaan doona marka laga soo tago hadalka gudoomiyaha degmada Dharkeenley oo arintan si weyn ula yaabay waxa jira warar dheeraad ah oo sheegaya in gabadhan la kufsaday kadibna si aysan u hadlin la dilay oo meedkeedana lagu dhex qariyay digsi weyn oo dhex yaala isla gurigooda arintan ayaa waxa looga shakisan yahay ilaa iyo 3 wiil oo guriga kula sugnaa reerka gabadha ahna isla qaraabada gabadhan dhibkan uu ku dhacay ciidamo ka tirsan booliska gaar ahaan kuwa CID-da oo goobta gaaray ayaa soo xiray dhammaanba reerkii guriga ku sugnaa waxaana si gooni ah loo baarayaa 3daasi wiil oo iminka CID-da ku xiran dhacdadan waxay si weyn uga yaabisay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed oo saacadihii la soo dhaafay si weyn arrinkan u hadalhaya iyo sida naxariis darrada ah ee nafisa loo dilay sidoo kale waxay argagax ku abuurtay dhacdadani dadka deegaanka gaar ahaan dariska nafisa oo ilaa iyo hadda si weyn ula yaaban qaabka gabadhan silaca ah ee loo dilay waxaana jirtay in gacmaha iyo lugaha laga xiray kadibna meedkeeda lagu dhexriday digsi dhex yaala gurigooda Allah u naxariista ayaan leenahay nafisa yar waxaan u rajaynaynaa in ay hesho cadaalad
sidoo kalena tiirka la soo taago kuwii dhibkan u geystay gabadhan. intaas ayaan doonayaa in warbixintan murugada leh aan uga gudbo. halkan waa janaalka Badda Cas oo haddii jeer aan idinkugu soo gudbinno dhacdooyinka degdega ah iyo wararka ugu xiisaha badan ee Soomaalida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. idin salaamisa wada dhantii saqiir iyo kabiir meel walba adduunyada dacladeeda ka wada joogtay salaanta islaamka idinku salaama mar labaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta shucuurteedu ma la qiyaasi karo, aad baa u tiiraanyeysanahay waayo adduunkan زمنا لوجر الدنيا قدونا لوجر الدنيا قدو وردان كسو كعي ميل وصعد ميل كلوا فاهم الآية فاتي رتوحا لا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس داخل الموت واي وردون كان والله يتغى والدمنا والوكي لكن إن لسكن حريستها في عن بعد ذان آدكو فالحن وبعد آد أهو نحي ساكي شخذ حتى وكيل شخذ بروا وجريوي أنا جريوي عنق لي لجرجراي ديكسلو شوي حصومال وراو ما نخدين وراو ما نخدين وحكى الله صوص على مرك المية دي بلا كرسوي والعنوي وحكى الله صوص على عنق نول إن لجرجري خفك إن عنق خبتي جرجري توني كوجر توني لو جري سبحان الله ورع الله شميدي حنون ناسمي هبين مكلالا باور دور قدامك كبرتي أنا مال أردوي هبين كنا واسع حوي مكلاش كداو أرد عان وصوق عصير سي وعسي سي داو تاكنا لما توردوي إلى هذا معتاينا إلا يعفي خف نال الخوي الجرجري صرفيدي أو بزبط له كرناي أو زبط له كرناي قبل وشويا كناف أو زبط له كرناي وشويا يا أخي لا يعبصد يا أخي ورمحا عبصدني غادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون ور إله الله إله لا يعبصده ور إلما فراه لا يخاذه عبسي يا بن جلسي عبسي ور ساينس لاني ما وصومالي إلهي تي إله دمن والله تي إله دمن إلهي أذا قرب فيري إله قرب ذا يغاتي يا ربي إلهي صومالي بقود اسكو عدي يا ربي يا رحمن سان ورميلا وصعدي ميل كالدركي شخذ واحد برا وبحا فاهم الآية عنوك ير أو نجرجراي بحا دور ميا دور أما ضيق واي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي كعبصدا ور إلهي كعبصدا تم الدنيا وي آخرك دمبيسو ور إله لو لابطو والله مكلالك سيحوي مكلال خوف لو لابط ولا خلو يا ولا حرحر يا بسم الله ما وراو ما نخطي وراو مكلالك سيحوي خوف نولا حرحرتينا سيرتي أربتي ماجن من يصدرنا وكرستي. إنا لله وإنا إليه راجعون. صومالي إلاني أنا بإلاني ما ينقلب سان ما إليك عبصدا وردونك والله يتغى هد الله معنا خوري وعياب صور نماذ مركان بانقد يسعنوها ميد لي صرفيلو شوي يا أخي إلهك عبصدا حسبي الله ونعم الوكيل. إلهي الله لابطو إله الله يعبصده والله ميل السعودي ميل كان وفاهم الآية انت بحي ما بس يذكر انا بقولها جري انا ملء المينا فيصل جرا يريد قسع بحر واحد بحر كامير انت كسو كنسو جيت انت كسو ركب يا اخي انا نحن يا اخواني نحن وسيني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.